daawadayaal halkan naga daawanaysaan waa saxafi filim su'aal ah idiin soo gudbisa barnaamijyada aynu kaga hadalno aktarada shirkadda Hollywoodka filimada ka daadiya. Daawadayaal barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa aktaro badan oo ka tirsan kuwa filimada ka sameeya dalkaasi Hindiya ayaa filimo badan hore u sameeyay. Aktarada filimada ay sameeyeen waxa ay ku jileen iyaga oo markaasi matalaya in ay yihiin qof dumar ah. Aktaradaasi waxaa ka mid ah aktaro badan oo magac iyo sumcadba ku leh dalka Hindiya. Haddaynu ku bilaawno jilaaga caanka ah ee Aamir Khan filimkiisa Baazi waxa uu ku jiray muuqaal kooban isaga oo matalaya in uu yahay qof dumar ah oo markii qaabkiisa la fiiriyo aad u malaynaysid gabar tima dhaadheer leh qaab jiliinkii dumarkana waa uu ka soo baxay waxaana lagu tilmaamay dadkii markay filimkaasi Baazi daawadeen in Aamir Khan uu ka baxsan karo doorka dumarka amaba in dumarka la isu ekeysiiyo. Haddaynu intaasi kaga gudubno Aamir Khan waxaynu soo qaadanaynaa jilaaga caanka ee Shah Rukh Khan. Haddaba Shah Rukh Khan goormuu jilay doorka dumarnimada filimka Duplicate ee uu jilay sanadku markuu 1998 ayuu jilaagan waxa uu ku jilay isaga oo haweeney matalaya. Qaab jiliinka Shah Rukh Khan waxaa la yiraahdaa ikii Aamir Khan marka la isku qiimeeyo waxa kaga qurux badnaa Aamir Khan filimka Baazi oo aan horey idinka sheekeynay. Haddaba labadoodaba waxaa beeniyay jilaaga caanka ee Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan filimkiisa caanka ahaa ee Lawaris waxa uu ku jilay isaga oo qof dumar ah. Ha yeeshee hal hees oo kaamila oo dhammaystiran ayaa waxa uu Amitabh Bachchan qaabka dumarka inta loo soo ekeysiiyay ka ciyaaray heestaas markii aad daawatidna isma oran kartid qofka heesta qaadaya waa Amitabh Bachchan. Sidoo kale waxaa ka mid ah Rishi Kapoor filimkiisa Rava Jakur waxa uu isna ku jilay isaga oo qof dumar matalayay waxaana Rishi Kapoor markii aad filimkaasi daawatid aad dareemaysaa in uu matali karo qaab jiliinka dumarka. Ratesh Deshmukh haddaynu soo qaadano oo ka mid ah aktarada shirkadda Hollywoodka waxa uu ku jiray filimkiisa caanka ahaa ee Abna Sabna Panay Pane waxaana uu la yimid qaab jiliin ka duwan aktarada aan horey u soo sheegnay isaga oo loo maleynayay in qofka meesha taagan ay tahay qof dumar ah. Govinda meesha kama marnaa filimkiisa caanka ahaa ee Auntie Number 1 waxa uu ku jilay in uu yahay qof dumar ah. Govinda agshimada iyo hadallada uu filimkaasi ku daray waxaa lagu xasuustaa in uu ahaa aabaha komediga ama majaajilada ee shirkadda Hollywoodka. Sidoo kale haddaynu soo qaadano Shahid Kapoor filimka Milenge waxa uu ku jilay isna qaab jiliinka dumarka kii ugu cajiibsanaa. Haddaynu kaga gudubno intaasi Shashi Kapoor filimkiisii Plaf sanadku markuu 1963 waxaana lagu tilmaamaa in uu qaab jiliinkiisa ahaa mid ilaa hadda lagu xasuusto in uu aad isugu ekeysiiyay dumarkii waqtigaasi jiray. Kamal Hassan sidoo kale filimkiisa Chachi 420 oo uu ku daadiyay xalqado badan oo filimkaasi ka mid ahaa qaab jiliinka dumarka waxa uu noqday filim blockbuster waxaana lagu tilmaamaa filimada ugu wanaagsanaa ee lagu sameeyo South Indian Films. Akshay Kumar haddaynu ku darno filimkiisa Khilaadi sidoo kale waxa uu la yimid qaab jiliin cajiib ah markii loo dhiibay doorka dumarka. Saif Ali Khan sidoo kale oo ka mid ah aktarada shirkadda Bollywoodka filimkiisa Hamshakal qaab jiliinka uu la yimid iyo muuqaalkii markaasi uu sameeyay Saif Ali Khan waxa uu aad ugu ekaaday marwada hadda u dhaxday ee Kareena Kapoor waana la soo qaatay waxa la yiraahdaa Saif Ali Khan markii uu filimka Hamshakal jiliinka qaybta dumarka uu jilayay waxa uu aad ugu ekaaday xaaskiisa Kareena Kapoor. Daawadayaal barnaamijkeenu kaga hadlaynaa aktarada jila doorka dumarka intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxa idin daadinaya anigoo Caaqil Cabdi Faarax halka aad ka daawanaysaan waa Saxafi Films. Intaynu barnaamijkan lamida ku kulmayna inagoo isku duuban waa baada saxafina waxaynu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.